يعني هذا الله درقاف عيده في اللي قصي عياتنا عيده بالنسبة وهذه يصير كوا وحكي سيدي يقول لا عبيك قبل كوكل عواج يقول يا عيده بالنسبة منك هذا يقول كوا سيدي كوا ومدة يعدي قبل كوا لا 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 في الجادي هذا عن قيمة لا ولت بعد ما تكسر تروح هذا قدر كتمار سعافة الله وحقي حياه إلان عيدا اللي راح بكل سنة رايدي يتشغل من هذه لا يخبيه وحن يجيكوا فلنا بدونها وحلا لما بس عادي يستي بنت عيدك كسر قال والعيدك وكباجي وهجاجي والنفكاجي والدفاعي هذا اللي ما نقول جاي هرتاجي يا عاقاق يا إيري هذا ولا يعني بتجيلي كامل مبناه وقتها قارن دو حياته جرهنا أو لبع الفليال بان فرن قفل بتسمى مانتها وإسكاله عيدا كي بليس كحاجة كاكيلا هو أدبان وحول لي وأنا وحنو على قف عن قيمة بدون هاي شركة تلاقي وحي أرقوني تريحيك البوليس قاعد يشتغل تعرف مركي عيد كو بيشي كواد لما كوني يسغالتهم وحي عيدك البوليس سوحلين إذا سنة عبد الحكيم قحمد كاسو لما هينيو فلان لما تقريها حلسوا إسلام كان سكب بحث شرعية ويرى بيرو شخصيات قرأة من كاسوها من هراء صومري إنه يكيدون أكرك لكن الحسين فلان أرشعوها أو كوكعي وحنا ونسي تتكوها ليا يقولون المركة نينكو وحياواها عيبتا عيبناكو كأي دينتا midna aan waafaqsanayn inay ka qabtaan sidoo kale taariikhdu markay ahayd 12 bishii koowaad 2019 ciidanka booliiska Soomaaliland waxay soo xidheen eedeysane Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Ismaan loo yaqaano Inaabes kaasoo lagu eedeynayo inuu ku kacay falal abaabul nabadgelyo daro dacaayad iyo eedeyn uu geystay ciidanka booliiska iyo qaranka waxaa caddaynaya waxyaabahaas uu sheegaya inay yihiin arrin hadda la soo abaabulay waqtiga walaalkii falka bulcadnimada ah uu ku kacay waxay ahayd muddo sanad iyo bad ka hor ah taasaa idin caddaynaysaa in dembiga la soo abaabulay oo isaga ayaa galay walaalkii inuu burcad magaalada dhacay ahaa xarigiisa waxaa loo soo maray sifo sharciga waafaqsan eedeysanahan waxaa haysta aqoon daro iyo indho-la-aan dhinaca sharciga ah waayo wuxuu kartay inuu ciidanka booliisku ku sameeyey shaqaysataag inuu bilinaya waajibaadkii shaqo ee loo igmaday sida uu qabo gobolka Tuusilisbool safka hore uu ka hadlayay ka muqday laabsalax oo wixii uu ku kacay ay ogtihiin iyadoo baalistiisina gacanta lagu hayo iyado kale oo u adeega cid aan qaranada Somaliland jeclayn shacabka reer Somaliland ciidanka booliiska u yaqaanaa waxay qabtaan waxay galanba waxaan u sheegaynaa in arrinta uu ku hadlayo ay ahayd muddo ka hor waxaana halkaas ka muuqata inay tahay arrin hadda la soo qorsheeyey lala soo abaabulay isla markaana qaranka lagu ceebanayo waxaan idin sheegaynaa in ciidanka booliiska yahay kuwa habeenaya maalinta u taagan bacadka iyo gabanadaba sidii hore u sheegaba taliyaanka ciidanka booliisku halkan waxaan hambalyo iyo boogaamin uga tagayaa abwaanada xariirta ah ee reer Somaliland ee ilaaliya qarannimadooda dhaqankooda bulshadoodana waxa wanaagsan u gudbiya bulshadooda waxaana naga mudan yihiin ammaan iyo boogaamin waxaan ognahay kaalinta ay kaga jiraan qaranka Jamhuuriyadda Somaliland hase yeeshee falka weerarsan ku kacay waa mid baalmarsan kaalinta hardoolka abwaanida Somaliland lagu yaqaanay in waliba sharciga ka sareysa sharciga waxa ogtiin waa loo simeeyay soo qodobka saddexaad ee xeerka aqoonta guud
ee saaxiray gabadha uu sheegayo ee uu leeyahay saldhigga ayay ku katiraysay oo waa la kubsaday waa beentii waxaana u xidhayd khasaare ay u geysatay gaadiidka dadweynaha oo ay jijibisay waxaanay ahayd gabadh maskaxda waxba dhib yihiin kadibna ciidanka booliisku waxay markiiba u gudbiyeen cusbitaalka guud ee Hargeysa qaybtiisa dhimarka waxaan kaloo sheegaynaa in 4 kadnaadeyo ah ee uu saldhigga ku dhex arkay in ay si wada jir ah fal khasaare ah u wada galeen horaan u soo sheegnay inuu sharciga aana aqoonin indhalaana ka yahay sababtoo ah waxaana ogeyn dambiyada wadajirka loo galo eegata 4 kaa uu sheegaya waxay si wada jir u geysteen khasaare waxaana kiiskooda loo gudbiyey maxkamadda iyo xeeladaha wadooda bintii iyo gabagabadii ee wasaaruhu shirkaa uu qabtay waxa uu ahaa been aan sariya lahayn culimada sharciyaankiina waxay ku tilmaamaan lama fay taliyada wuxuu yidhahdaa mulla eforta eegata waana mid uu ku ceerinayo eegata waana mid eegata waxaa yahay mid uu doonayo inuu ku ceebeeyo dalka Soomaaliya kiiskiisii waxaa loo gudbiyey maanta bishii tahay 13 maxkamadda iyo xeeladaha ayuu hortaagan yahay dambiga uu galana waxaa laga dhigan maayo sababtoo ah si uu kaca isagoo garashadiisii leh oo rabitaankiisii leh ayuu si uu kaca guud ahaan ciidanka booliiska meesha joogaanba wax aanay gelin oo aanay ka mutaysanin ayuu ku kacay waa fal dambiyeed waa lagu qaadaya shacabka reer Soomaaliya ciidanka booliiska aqoon bay u leeyihiin waxay u qabtaan iyo waxay galaan waa kuwa habeenada dhaxalta u taagan waa kuwa dambiyada dhacay ka hortagaya